xukuumadda danqaran ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 3 sano jirsatay haddaba muddada 3 sano ay xukuumaddu shaqaynaysay waxyaabaha guulaha horumarka waaweyn ee la gaaray ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa sida dhinacyada amniga difaaca qaranka horumarinta adeegyada bulshada dhaqaalaha dawlad dhiska iyo xiriirka caalamiga ka gadaal markii xukuumadda danqaran ay dib u habayn ku samaysay ciidamada qalabka sida waxaa cadowga laga xoreeyey dhul ballaaran oo 120 deegaan iyo marino muhiim ah isugu jira kuwa oo ka tirsan gobollada dalka sida Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. dhammaantood khawaarijtu waxay ku dhibaateynayeen shacabka ku nool deegaanadaasi. waxaa la xoojiyey howlgallada lagu naafeynayo khawaarijta iyadoo oo la burburiyey shabakado maaliyadeed oo cadowgu adeegsanayay. lacag 15 milyan oo dollar ah ayaa laga xanibay cadowga. waxaana la fashiliyey weeraro badan intii u dhaxaysay 2022-2025. in ka badan 4,200 oo howlgal oo cadowga lagu beegsaday ayaa la furiyey dhimasho iyo dhaawac fara badanna cadowga waa loo geystay. 769 xubnood oo khawaarijta ka tirsan ayaa nolosha lagu qabtay muddadaasi howlgalladu ay socdeen. waxaa hawada laga saaray ilaa 13,000 oo baraha bulshada khawaarijtu oo isugu jira Facebook, Twitter, Telegram iyo TikTok kuwa oo ay ku baahinayeen waxyaabo ay ku marin hagaabinayaan bulshada. xukuumadda danqaran waxa ay dhistay ciidamo cusub oo ka badan 20,000 askari kuwa oo hanan kara amniga qaranka. waana qayb ka mid ah qorshaha dawladda ee diyaarinta ciidan qaran oo si buuxda ula wareega amniga guud ee dalka. ciidanka xoogga dalka ayaa si guul ah ula wareegay 31 saldhig military oo horey ay u joogeen ciidanka ADMIS. sidoo kale sugidda amniga madaxda qaranka ayay si buuxda ula wareegeen ciidamada qaranku. ciidamada ayaa lagu qalabeeyey hub casri ah sida diyaarado, gawaari gaashaaman iyo hubka noocyadiisa kala duwan. horumar dhinacyo badan ah oo dhismaha ciidanka ayay dawladdu samaysay muddadaasi. waxaa saldhig u ahaa kadib markii xukuumaddu ku guulaysatay in si buuxda loo qaado cunaqabatayntii hubka ee Soomaaliya saarnayd muddo ka badan 30 sano. xukuumadda danqaran waxa ay kor u qaaday sugidda amniga caasimadda iyada oo hoos loo dhigay qaraxyadii cadowgu ka geysan jiray caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka 73%. kadib markii dadaal xoog leh iyo ka go'naansho ay la timid dawladdu iyadoo la fulinayo awaamirta madaxda qaranka. dakhliga guud ee canshuuraha ayaa kordhay 82% 4 sano gudahood, halka canshuurta dakhliga ay korortay 141%. canshuurta gediska ayaa 125% korortay. dakhliga kastamka 71% ayuu kordhay, halka dakhliga aan canshuurta ahayn uu kordhay 102%. sanadka 2022 dakhliga guud ee dalka waxa uu ahaa 290 milyan. sanadkii 2023 dakhliga ayaa kordhay isagoo gaaray 350 milyan. markii la gaaray 2024 koror kale ayaa dhacay waxaana dakhliga guud ee uu noqday markaa 400 milyan. saadaasha sanadka 2025 waxaa la filayaa in dakhligu uu gaaro 450 milyan. kobacani waxa uu muujinayaa in celcelis ahaan sanad walba uu dakhligu kordhayo qiyaastii 50 ilaa 60 milyan. hannaanka deyn cafinta waxaa la gaaray heerka gunaanadka barnaamijka hibik bishii Diseembar 2023 iyada oo dawladdu laga cafiyey deyn dhan 5 bilyan oo dollarka Mareykanka. waxaa la dhammaystiray dib u eegista 4 cutub oo ka tirsan dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka iyo sharciyo muhiim ah sida sharciga doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda. xukuumadda ayaana dhisay guddiyo madax bannaan oo markaasi muhiim u ah dawlad dhiska. diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo codbixiyaasha ayaa si taariikhi ah loo hirgeliyey iyadoo 57 urur la diiwaangeliyey. waxaa si rasmi ah loo dhisay dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya oo dawladdu ay juhdi ku bixisay dhismihiisa. muddadii 3 sano ahayd ee ay shaqaynaysay xukuumadda danqaran waxa ay meel marisay 61 hindise sharciyeed, 91 heshiisyo caalami ah, 42 xeer nidaamiye, qaraaro 14 ah iyo heshiisyo isugu jira is-afgarad iyo kuwa caalami ah kuwaasoo saamayn iyo waxtarba u leh ummadda Soomaaliyeed iyo dawlad dhiska. xiriirka caalamiga ah Soomaaliya waxa ay noqotay xubin rasmi ah oo ka tirsan bulshada bariga Afrika
EAC waxa ay ku guulaysatay in ay fadhiisato kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay. sidoo kale guulaha kale ee dan qaran ay markaa ku hogaamisay dalka waxaa ka mid ah in cunaqabatayntii hubka laga qaaday dalka waxaana la xoojiyey kaalinta Soomaaliya ee ururada caalamiga ah sida AU iyo IGAD. xukuumadda dan qaran waxa ay dhistay xarumo cusub oo ay ku jiraan 16 xanaano carruur ah, 51 dugsi hoose dhexe iyo 14 dugsi sare. waxaana intaasi dheer in 732 fasal cusub la dhisay halka 340 fasalna la dayactiray. in ka badan 6,000 oo macallimiin ah ayay dawladdu shaqaaleysiisay iyo tababaro loo sameeyey macallimiinta. manhajka ayaa dib u habayn ballaaran lagu sameeyey. xukuumadda ayaa dhistay 3 isbitaallo heer gobol ah waxaana la hirgeliyey bangiga dhiigga qaranka iyo baqaarka qaranka ee daawooyinka. dhismaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa ah qodob kale oo muhiim ah oo ay ku guulaysatay xukuumaddu. in ka badan 2,850 dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa la siiyey tababaro xirfadeed oo muhiim ah. xukuumadda dan qaran waxa ay hogaamisay in dalkeennu ku biiray East Africa Community iyo World Trade Organization, taas oo dalka u furtay fursado ganacsi iyo maalgashi ballaaran. waxaa la daahfuray barnaamijka tamarta cagaaran iyo siyaasado lagu koronto gelinayo meelo fogfog oo dalka ah iyada oo heer gabagaba ah u marayo barnaamijka korontogelinta 153 xarumo caafimaad iyo 215 xarumo waxbarasho. waxaana la dhisay hay'adda korontada qaranka iyo xarunta tababarka tamarta cadceedda oo ay ka aflixeen 110 farsamayaqaan iyo injineero. waxaa la dardargeliyey horumarinta adeegyada gaadiidka cirka iyo dhulka, fududaynta isku xirka gobollada dalka iyo dhismaha garoomo cusub oo uu ka mid yahay garoonka cusub ee Muqdisho oo haatan ay socoto shaqadiisu. dan qaran ayaa dib u bilowday soo celinta adeegga diyaaradda qaranka ee Somali Airlines oo duulimaadkeeda rasmiga ah la filayo inuu bilaawmo dhammaadka sanadka 2025. mashruuca talaalka caafimaadka xoolaha ayaa 3 sano gudahood lagu talaalay 20.5 milyan oo xoolo ah intii u dhaxaysay 2022-2025. waxaa la dhoofiyey 18.93 milyan oo xoolo ah taas oo kordhisay wax soo saarka gudaha 45%. waxaa la hirgeliyey mashruuca badmaal oo leh miisaaniyad 55 milyan ah waxaana la dhisay golayaal iskaashi heer qaran iyo heer caalami ah iyadoo la xoojiyey la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah. xukuumadda dan qaran waxa ay samaysay hay'adda baaritaanka iyo sharciyeynta beeraha. waxaa la taageeray beeralayda iyada oo markaasi abuur la siiyey 25,000 oo beeralay ah, tababarna loo sameeyey in ka badan 18,000 oo ruux. waxaa la dayactiray 510 kanaal waraab ah, 44 buundo iyo qalab casri ah beeralayda lagu taageeray. xukuumadda dan qaran waxa ay ogolaansho siisay shirkado caalami ah si ay sahan iyo baaritaanno ugu sameeyaan kheyraadka dihan ee dalkeenna ceegaaga si gaara dhinaca badda. waxaa dhammaaday sahankii seismic 3D iyo 2D ee badda waxaana la ururiyey xog muhiim ah oo la xiriirta kaydka shidaalka dalka. dan qaran waxa ay dejisay qorshayaal lagu xoojinayo dhismaha casriyeynta magaalooyinka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee isku xiga gobollada dalka iyo xuduudaha geeska Afrika. xukuumadda dan qaran waxa ay wax weyn ka beddeshay culays muddo ka jiray arrimaha xajka. waxaa la jaangooyey qiimaha rasmiga ee xajka lagu tago iyadoo la nidaamiyey shirkadaha adeegga xajka lana hubiyey adeegyada deegaanada, gaadiidka iyo caafimaadka xujayda, taasoo xaqiijisay in dalkeennu uu galo kaalinta afaraad ee kala horraynta dowladaha xajka. waxaa la dhisay xarunta dhexe ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka oo ah dhisme casri ah oo leh dhammaan qaybaha muhiimka ah ee loogu adeegsano ama loogu shaqaynayo. waxaa la daafuray macadka dacwada iyo daraasaadka islaamka oo ay dhigtaan 204 arday oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo wax ku barta si lacag la'aan ah. waxaa sanad walba la qabtaa shirka culimmada Soomaaliyeed oo ay markaasi ka soo qayb galaan 100 culimo ah waxaana ujeedka shirku yahay midaynta culimada iyo ku baraarujinta bulshada ee qiyamka diinta.